دور فعال كلنا هاي أما دور مو كلنا هاي جريتان كأمة الصوماليات أنا نهاي لف دبرت أمة الصومالية إنا موجنو أيان أتاجنا هاي هذا وما سنت لكن طبعا مكوكو تلا جرتا dhibaatooyin ka dalka ka taagan oo 22 sano midnimo la'aanta ka jirtay dhalinyarada ku dhibaataysan dhibaatada ku haysa ee ku kala daadsan bulshada Soomaaliyeed inaad wax u qabataan aad isku daydaan sidii bulshada aad gudoomiye u noqoteen aad adduunka ugu doodaan hay'adaha ugu doodaan telefishan ugu doodaan meediyaalka ugu doodaan ma ku tala gasheen in dhalintaas kala daadsan aad bulshada wax ugu qabataan YFS ku talagalid ma ahan muddo 3 sano waxay ku jirtaa inay dhalinyarada u doodo ee ku soo bandhigto meelaha iskugu yimaadaan hay'adaha caalamiga ama muxuu ahaatay ka dhacan kulamada waaweyn qadiyada ah in dhalinyarada Soomaaliyeed wax loo qabto mana ahan isku day ma ahan waa hool aan ku jirno aad ugu mahadsantahay laakiin maadaama 22 kan sano dhibaatooyin ay ka jirtay asxaab badan ay soo burinaysa aan jaanis siinayo waxaan codsanaynaa 22 kan sano maadaama dalka uu ahaa dal burbursan dhibaato badan uu ka jiray kala daadsanaan ay jirtay inaad wax u qabataan dhalinyaradaas dhibaataysan ay macnaha dhibaatada hadda wax arkaysa in magaalada ay ku soo bateen dhalin koola dhuuqaysa oo ku kala daadsan cid wax u qabatay aysan jirin marka maadaama aad gudoomiyaha tahay dhalinyarada wax u qabanayso inaad u doodaan ka codsanaynaa adiga iyo asxaabtaada iyo saaxiibkay mustaqbal xasan toob oo ah saxafiga ugu saxaafada qiimaha badan waxa idin leeyahay idinkoo horumarsan bulshada kala daadsan wax u qabto galab wacan aad baa kaaga mahadcelinayna waa ballan in ummadda Soomaaliyeed iyo khilaafaad yaryar dhalinyarada ka dhaxeyn kara si ay ugu kurgalaan qaabka isdhaxgalka nabadda ah ee dhalinyarada si ay ugu kurgalaan badbaadada dhinaca dabaasha caruurta halkaas joogto maamooyinka meesha keenaan waxaan seenaa wacyigelinaan seenaa ugu sheegnaa halista ama khatarada ay leedahay in ciyaalka hirkaas weyn lagu deeyo aad ka wacyigelinaa dhalinyarada meesha imaanaysan waxaa ka wacyigelinaa inay nabad meesha kula joogaan in aanan muxuu ahayto gabdhaha la foodeenin inaan muxuu ahayto drug use-ka aan la sameynin meesha ama lala soo aadanin shiishada ama xashiishka wax loo yiraahdo lala soo aadanin anshax xumad balaga ilaalin waa tahay waa maasantahay Cabdullaahi Ashcari qadka telefoonka iyo qofka ku jira dhageystaha doonaya inuu ka qayb qaato barnaamijka wacyiga barbaarta assalaamu calaykum wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh magaca iyo deegaanka dhageysta ku soo dhawow wacyiga barbaarta galabta waa ku dhawaad saaxiib magaciiguna waa Ismaaciil Cabdinuur Muuse injineerka waxaan joogaa degmada Baaxadii ee hodan gaar ahaan Labrafar Ismaaciil su'aalo miyaad isweydaarsan lahaydeen sifiican saaxiibkii Ashcari aad baan u salaamay maadaama uu yahay barnaamijka la tamartin oo yahay saaxiibkii waa ka qaad walaal runtii saaxiibkii waxaan weydiin lahaa laba su'aal oo qiimo badan runtii maadaama uu yahay baalkii dhalintan Soomaaliyeed oo runtii magaalada Muqdisho maadaama ay tahay degmooyin fara badan magaalada Muqdisho ay ka jiraan oo na sheegay inay u doodaan xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama la ogyahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay xuquuqdooda hore ugu lantay dagaaladii Soomaaliyeed ay inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay yihiin kuwa dagaalada wadanka ka socda ay ka qayb qaataan marka dhalinta Soomaaliyeed maadaama hadda magaalada Muqdisho ay tahay sheeg degmooyin fara badan meel walba xarumo walba ama degmooyinkaas mid kamid ah ma ku leeyihiin meel walba ma ku leeyihiin isaga ururkooda ma ka joogaa mase hal meel ayay ku kooban yihiin midda koowaad taas ayay tahay midda labaad weli ma aana maqlin dhalintan Soomaaliyeed oo runtii saaxiibka uu sheegay inuu gudoomiye u yahay magaalada Muqdisho waxay ka qabteen weli ma aana maqlin runtii hadday wax qabtaan waa la maqli lahaa Soomaan waa tahay waa maasantahay qadka ku jir aad u mahadsantahay su'aasha koowaad oo ah qaabka loogu doodo ama hadii jiraan xarumo waxaa muhiim ah in la helo informationka qofka tacadiga loo geystay ama qofka dhibka loo geystay waxaan sameynaa waxaa la aruuriyaa dadka tacadiyada loo geystay waxaana loo gudbiyaa hay'adaha ku shaqada leh ee xuquuqul insaanka waxaan kala tashanaa Somali Protection Cluster oo ka dhacay UN-ka gudihiisa si looga doodo arrimahaas waxaana muujinaa inay xadgudub tahay in la xirxiro dhalinyarada markay dhacaan shaqaaqada kadib waxaan kaloo sameynaa su'aasha kale oo ahayd waxqabadkiina waa la arki lahaay qofna wuu arkaa qofna ma arko kullee waxay ku xiran tahay adiga informationka aad raadisid walaalkii informationka uu raadiyo halaha baaxadooda ay la eg tahay ama dadka uu saaxiibada leeyahay ama dadka uu informationka raadiyo iyo social network qaabka uu adeegsada ku xiran tahay YFS registered organization way oo ka diiwaan galsan dawladda Soomaaliya ee gobolka Banaadir waxayna qabataa bandhigyo ama socdaalo wadooyinka lagu maro maalmaha taariikhiga ah ama maalmaha quseeya arrimaha dhalinyarada iyo xuquuqul insaanka haddii aad u baahan tahay sanadihii hore waxaan soo qabanaa haddii ay ku dhaafeen waa ogaan kartaa oo waxa ka booqan kartaa youthforsomalia.org ama Facebook Youth for Somalia YFS saaxiibkii Ashcari waa maasanta runtii baalkii hadalka qiimaha badan iyo saan nooga qabtirtay baalkii informationka aan siisay runtii su'aal kale aan ku weydiin rabo waxay tahay maadaama aad sheegtay inaan aniga information badan aan ka hayn oo runtii maadaama wax badan aad qabateen oo sheegtay inay dhalinta Soomaaliyeed waxa aad u qabateen oo kale magaalada ay ku jiraan oo kale runtii waxa la qabto kale magaalada kama qarsoona oo awoodda qofka marka uu leeyahay laga xaqiijiro waxa uu qabto kale marka runtii aniga waxaan kamid ah dhalinta Soomaaliyeed wax la qabtay ilaa hadda dhalin fara badan waa la wareysay waxa uu
qabateen oo muhiimada ay koowaad ay tahay ma aana maqlin wax la qabtay ilaa hadda dhalin fara badan waa la wareysay waxa u qabateen oo muhiimada ay koowaad ay tahay ma aana maqlin saaxiibkii markaa runta laga hadlo taas waa walaalkii aad umahadsan tahay aniga wixii loo baahnaay 100% waa FS way qabata kuma dhihin laakiin waxyaabo dadaal oo la qabtay way jiraan haddaa u baahan tahayna page-ka ka daalacan kartaa waan noo imaan kartaa si fiican waa mahadsantihin saaxiibkii waa tahay aad u mahadsan yahay dhegeystayaal sida wacan wanaagsan oo barnaamijka uga qayb qaatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystaha wuxuu yidhi bahda mustaqbal waa idin salaamay magacaygu waa cabdulqaadir abow degmada waa bari oo yidhi howlgalka ay